الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalka qaaliga ah walaashayda qaaliga ah dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaanta kadib waxa aan rabaa kelmad yar 5 arrimood in aan soo bandhigo 5 arrimood oo Allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku sheegay. 5 arrimood waa 5 shallayto oo qofka adduunyada ilaahay ku iloobay aakhire marka uu yimaado uu ku shalaayi doono, ku cataabi doono, ku calaacali doono, uu ku ooyi doono inta aysan maalintaas dhicin. 5 arrimood oo ilaahay qur'aanka uu ku sheegay waxaa laga rabaa inaad ceebtaas maalinta ayada ka fogaato oo aad ceeb ka saliib noqoto maalinta yawmal qiyaama ee isku yimaado. ilaah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi suurado kala duwan, aayado kala duwan ayuu ilaahay ku soo qaatay qur'aanka. tan ugu horeyso qofka ilaah subxaanahu wa tacaala adduunyadan ku iloobay markuu qiyaamaha yimaado waxa ugu horeeya uu oran doono waxa weeyaan markuu arko masraxa iyo jawiga iyo xaaladda cakiran iyo meesha ay marayso iyo xaaladda culayskeyga iyo dhibaatooyinka taagan marka uu arko wuxuu oran doonaa yaa laytanii kuntu turaaba, alla man carra noqdo. waa shalaatada ugu horeysa. yaa laytanii kuntu turaaba, alla maan carra ciid iska noqdo, alla maan siiga iska noqdo, alla maan boodh noqdo, alla ma aan waxaan jirin aan noqdo. yaa laytanii kuntu turaaba ayay qaar oran doonaan. shalaytada labaad markuu arko asxaabtii xumayd uu la socday meeshii ay ku dambeeyeen ay galeen ayaa haddana wuxuu oran doonaa yaa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila, alla maxaan hebel saaxiib uga dhigtay, asaga ayaa aroosada ii kaxayn jiray, asaga ayaa baararka ii kaxayn jiray, asaga ayaa ilumeeyey, asaga ayaa ribada qaaday ii yiri, asaga ayaa xumaanta sameeyay oran jiray. yaa laytanii buu leeyahay lam attakhid fulaanan khaliila, alla maxaan saaxiib uga dhigtay wakaa naarta maanta ii aroorinaya. waa shalaytada labaad, maanta saaxiib fiican yeelo. shalaytada saddexaad qofku wuxuu oran doonaa markuu arko xaaladda culayskeeda ayaa wuxuu oran doonaa yaa laytanii lam uuta kitaabiyah, alla maxaa kitaabka ana gacanta midig la iiga siin waaye. yaa laytanii lam uuta kitaabiyah, alla maxaa anigana kitaabada maalinta qiyaama la isfiinaya buugaagta iyo qof walba wuxuu ku qoran yahay la isoo gudbinayo markuu arko ayaa wuxuu oran doonaa yaa laytanii lam uuta kitaabiyah. shalaytada shanaad qofku wuxuu oran doonaa allahu akbar yaa laytanaa atacna allaha wa atacna arasuula, alla maxaan rasuulka u ateeci waaye, alla maxaan allah u ateeci waaye, maxaan ilaahay amarkiisa u qaadan waaye, maxaan nebiga ugu dayan waaye. qofku arrimahaas ayuu ku ooyi doonaa. markaasuu qofku wuxuu sii oran doonaa yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila, sunnada nebiga udgoon calayhi salaatu wasalaam, xikmadda nebiga calayhi salaatu wasalaam, atharka nebiga calayhi salaatu wasalaam, ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam, dariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam, udgoona xabiib maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh maxaan ugu dayan waaye. walaalkayga qaaliga ah, walaashayda qaaliga ah, 5 shallayto qiyaamaha intaysan ku imanin maanta waxaad u diyaar garaysataa jawaabo ku anfacaya. waxaad u diyaar garaysataa inaad ilaah subxaanahu wa tacaala aadan ku hor kufin, oodan ku hor ceeboobin, oodan ku hor dulloobin, oo aysan kaa soo bixin erayada iyada hadda aan kuu sheegayo oo ilaahayna hore uu qur-aanka ugu sheegay. ka digtoonow walaashayda qaaliga ah, walaalkayga qaaliga ah, baaraka allah fiik, jazaaka allah khayr jazaa. intaas ayaan ma aragtay hawada inoo soo marsiinaya. baaraka allah fiikum, jazaakum allah khayr jazaa. maalinta yawmal qiyaama waxaa inoo ballan ah inagu ilaahay kaalmaysanaya subxaanahu wa tacaala dhammaanteen inaynu jannada isku aragno calaa sururin mutaqaabiliin, inagoo ku horfadhinaa mataqaanaa muttakiina calaa sururin masuufa, inagoo iska soo horjeedna oo mataqaanaa ku dangignaa sariiro iyo fadhi iyo meelo qurux badan iyo jannaatu cadnin iyo jannaatun tajri min taxta alanhaar iyo jannaatun muqiim iyo jannaatu lfirdowsi nuzula. kubu ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu marti qaadayaa jannaatu lfirdows. aniga idinkaba allah inaga dhigo. jazaakum allahu khayr jazaa, baaraka allahu fiikum. khayrka ummadda gaarsii, khayrka ka shaqee, dadka wanaag u hormar,
midna ugu baaraka allah fiik ilaah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi in yantahuu haddii aad iska daydo wixii hore yukfar lahum maa qad salaf in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf haddii aad ka toobad keento haddii aad ka toobad keento oo dib ugu noqoto taariikhdaadii hore madoobeyd noloshaadii hore xumayd dembiyadaad ku dhici jirta dib ugu noqoto ilaah wuxuu leeyahay yukfar lahum maa qad salaf wixii ay hore u dhaafsadeen oo dhanba ilaah wuu dembi dhaafaya إلهي وكادم بدافيا بل إلهي فضل جيسا إيه عز جيسا إيه شرف جيسا إيه وناء جيسا وحو أهل أيهي إنه أهل التقوى وأهل المغفرة وحو أهلها إلى حيري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حمانتي أسمين جرتي هاسيها دقيسين جرتي مستكدة قراعي جرتي حمانتي أتكو عري جرتي إلهي وحولي فأولئك يبدل الله وحبوسك لقب بدليا حسنات وناك لقب بدليا xumaanta aad samayso dhanba ilaahay wuxuu booska gelinayaa inaad wanaag samaysay ilaan isagaa ehel u ah innahu ahlu taqwa ahlu maghfira jaaniska ka faa'iideyso ilaahaas baad haysataa qiimaha badan ilaahaas ciise baad haysataa hana noqon kuwa maanta caqligoodu liito ee ilaahay caynaya subxaanahu watacaala ee dhahay ilaahay ma jiro ee atheistiga ah ee mulxidiinta ah ee kufaarta ah ha noqonin kuba ilaahay subxaanahu watacaala ku shukriya noqo kuba ilaahay garto noqo haddii xitaa aad khalad walba iyo dembi walba iyo fisq walba aad gaadho ilaahay iyo diinta marna ha ku xadgudubin dadku way kala sharaf badan yihiin qaar baa markii xumaantu intay meel walba la dhaafsay ayaa heer waxay gaareen inay dhahaan who is allah ilaahay waa ka ilaahay ma jiro kaala i qabo kaala عجيب عجيب إلهي وح لغو صفاده معها إلهي وح لغو عياره معها فورب السماء والأرض إنه لحق إله سبحانه وتعالى وهو جرى ويستنبئونك حق هو قل إي ورب إنه لحق قرآنك هو حق دينك هو حق إلهي هو حق ميزانك هو حق جنة هو حق وارن نارك وارن صراطك وارن نرشك وبابائسا نرشك وارن عجيب وحاصل نبوح له بينات كفايسته بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله توحينا وبلنأه خيرك إنك شقينا دمانتين